يزحف كالنيران، جيل يغلي كالبركان، جيل يزحف كالنيران. قادم 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 قادم، جيل العزة والحرية قادم، نبيت وثقت نار قوية قادم. لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، waxaan gudagalnay maalintii labaad mutamarkii inoo socday ilaa shalay. waxaan insha allahu tacaala bilaaban doonaa muxaadaradii koowaad ee maanta, magaceeduna uu yahay qisadii salmaan alfaris ee khayrdoonka ahaa. muxaadaradaas waxaa soo jeedin doona sheekh mustafa xaaji ismaaciil, falyatafadal mashkuuran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، sida walaaluhu qoondeeyeen waxaan ka warrami doonaa qisadii ku saabsiisanayd islaamnimadii salmaan alfarisiy, abu cabdullah salmaan ibn اlislaam, ninkay culamaai taarikh ku tilmaamaan. salmaan waa صaxaabi jaliila oo saxaabadii waaweyneyd ee nebiga ka mid ah salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. waxaanu ka mid yahay saxaabadii cilmiga iyo zuhdiga ku caanbaxday. waa nin saxaabiya oo raggii cilmiga ku caanbaxay ka mid ahaa, isla markaana ka mid ahaa raggii zuhdiga ku caanbaxay. waayo waa ninkii amiiru lmuslimiin laga dhigay inuu ka taliyo beershiyadii hore markay muslimiintu qabsadeen. magaaladii madaa-in la odhan jiray isaga ayaa waali looga dhigay. madaa-in waa magaalooyin yaryar oo boqoradii bershiya hore ay samaysteen, oo iminka iska xaafadun dacalkeeda ku taalla magaaladan hadda baqdaad la yidhaahdo. madaa-in markaa waa magaalo qusuur kala googo-ana, 7 magaalo yaryar oo isku naban, qusuur kala googo-ana. alqasri albaydaana uu ku yaalay, gurigii caddaa guriga la odhan jiray ee loogan talin jiray dowladdii bershiya. dhulka markay muslimiintu qabsadeen waa ninkii loo dhiibay. maca daalik waxaa la yidhaahdaa wuxuu diiday xataa meel la galo, geed buu iska hoos harsan jiro. markii dambe la yidhi aan guri kuu dhisno. ninkiibuu u yeedhay saxaabigee guriga dhisayo, wuxuu yihi maxaad dhisi doontaa? waxay ku yidhaahdeen mid haddaad istaagtana madaxaagu gaari doono, haddaad iskala bixisana cagahaagu aanay in badan iyana gaari doonaan. yacni kookh yar uuna aada hadhsato. halkaasuu nolosha ka joogay. qisasku markay yihiin sheeko dhab ah oo dhacday way ka cibro badan yihiin waxyaabo badan oo kale, bini aadamkana way kaga raad badan yihiin. salmaan qisadiisan aynu ka warrami doona waa qiso tilmaamaysa qof bini aadamah oo xaq raadiyey. inagu waxaynu naqaanaa oo maanta agteenna ku caan ah safarada xoogsitaga ah, in dunidao dhan loo meero, halka u dambaysa iyo halka u horeysaba la maro safar xoogsitaga. inta hadhayna inay ku wareysato oo warka ugu quruxda badan le kaa maqlaan uu noqdo hebel wuu gala. laakiin waxaynu marka kan akhriyi doonaa safarkaa ka gedisan. safar uu safray nin qoys ladan ka dhashay oo hanti haystay oo mujtamaciisa ka tirsanaa, laakiin safarkiisa oo dhami uu ku salaysayay inuu xaq raadiyo, inuu xaq baadi doono. safarkiisa uu ku salaysan yahay.
walidaalika qisada tan waxaan jeclay inaanan riwaayaadka tirada badan lee taariikhtu soo arooriso soo qaadanin ee aan soo qaato oo qura hal xadiid ama hal qiso oo sanadkeedu xasaniyey. yacni imaamu axmed xadiidka uu soo saaray oo rijaalka sanadkaa ku jira dhammaantood rijaalu صaxiix ba ay yihiin ilaa iyo ibnu isxaaq mooyaane rijaal hiqaat ay yihiin. ibnu isxaaqna uu rajul xasanu lxadiida yahay, xadiidkaasi oo culamada xadiidku ay ku tilmaamaan inuu sanadkiisu xasan yahay. xadiidkaasi markaa wuxuu ku saabsiisan yahay waa salmaan alfaris iyo isagu iska waramaya, u waramaya saxaabi kale oo yar markaa cabdillaahi ibnu cabaas saxaabigii la odhan jiray buu u waramaya. waxaanu uga waramaya taariikhdiisii nololeed ee xaqraadinta. cabdillaahi ibnu cabaas markuu xadiidka warinaya wuxuu leeyahay waxaan ka qaaday min fii afka salmaan baan xadiidka ka soo qaaday buu leeyahy, cid kale igama waramine salmaan laftiisa ayaa warka ii sheegay. dhacdada tan waxaynu ka fahmi doonaa marka haddii alla yidhaahdo inaanay wada sax ahayn in laga dhigo qofku inuu majbuur yaho aanu waxba haynin. qofku inay bii-ada uu ku nool yahay iyo duruufta ku weegaarsan, aabbiyo hooyaha dhalay iyo hidaha iyo taraa cidduu ka tirsan yahay iyo caqligiisu intuu dakaagiisu gaadhsiisan yahay, intaasuun inay xukunto oo uu yahay munfacil, yacni qof isaga wax loo tilmaamo markaa aan ka dhex bixi karin inuu yahay. aynu tilmaamno insaanku hadduu niya saadiqa la yimaado, ikhlaasuu ku jiro, dhab ay ka tahay waxa kani uu raadceeyo inuu gaadhi karo, isagoo duruufta uu ku nooliyey iyo bii-ada uu ku nooliyey iyo waxoo dhamme ay dhanka kale taagan yihiin. waa xujada dadka caajisiinta ah, xujada tidhaahdo dee maxaa sameeya, duruuftaa sacab ahayd, meeshaan ku noolayn baa caynka ahayd, noloshaa caynka ahayd, nolosha caynkaasoo dhan waa la bedeli karaa hadday dhabkaatay. waa xujada dadka kusaalaha, dadka caajisiinta ah. waxaa mudan runtii inaan tilmaamo intaynan qisadaba bilaabin, sheekha la yidhahdo maxamed ratib annabulsi oo ka waramaya siirada saxaabiga kan ayaa wuxuu muqadamo ka dhigtay. sheekhaasi oo ka waramaya siirada saxaabiga kan ayaa wuxuu muqadamo uga dhiganaya markuu masaladaa ka waramayo. wuxuu leeyahay insaanku hadduu xidhxidho ay dhab ka tahay oo ay casiimadu jirto inuu xaqa gaadhi karo, aan mithaal idin siiya buu yidhi. mithaalkiisaasi wuxuu ku bixiyey runtii mithaal maanta aada gariib dadkan maanta jooga ugu noqon kara. wuxuu mithaal u qaatay nin 55 jir ku soo gaadhay isagoo umiya, 55 sannadood ku soo gaadhay isagoo umiya, dabeetana go-aanka a qaatay inuu waxbarto, qoraal iyo kitaabo bilaabay, qur-aanka xifdigiisii ku xigsiiyey, sulamkii sharciga ee shareecada loo marayey maray, dabeetana noqday sheekhii masar ugu weynaa, shaykhulazhar masar ka noqday. waa nin 55 jir waxbarasho ku bilaabay, qoraal iyo akhris iyo qur-aan la xifdiyo, isla markaasi gaadhay inuu noqdo shaykhilazhar. 96 jir buu ku dhintay markii dambe. wuxuu leeyahay shaykhulazharkaasi min rajul laa yaktub walaa yaqra' fii sini 55 ku gaadhay ayuu ahaa buu leeyahy. laakiin markuu go-aankan iyo casiimada tan qaatay wuxuu noqday inuu shaykhulazhar noqdo muddadaa yare kooban. ilaahayna wuxuu inoo tilmaamayaa kula numidu haaulaa'i wa haaulaa'i min caطaa'i rabbik wamaa kana caطaa'u rabbika maxduura. idan waxaa aada u habboon inaynu qisada tan u fiirsano. salmaan alfarasi radia allahu canhu wuxuu ku bilaabaya, wuxuu leeyahay waxaan ahaa nin farisiya, farisigu waa persian, irani, min ahli asbihan,
magaalada asbahaan la yidhaahdo ama gobolka asbahaan la yidhaahdo u dhashay tuulada jayun la yidhaahdaan ka imi buu leeyahy tuulo jay ayuu xadiidkaasi tilmaamaya riwaayaadka qaarkood baa jayaan sheegaya magaca qaarkood alfaada laakiin waa lafdi farisiya xadiidkan laakiin xasankaahi wuxuu ku tilmaamayaa jayun in tuulada la yidhaahdo idan waa nin reer asbahaana eeraan ka tirsanaa tuuladaasi ku dhashay aabbahayna wuxuu ahaa buu yidhi dihqaanu qaryati dihqaanka waxay yidhaahdaan odayga magaalada cumdaha u ah ninka dee hantida iyo maalka iyo maamuuska iyo diin iyo waxba looga dambeeyo ee magaalada odayga ka ah ayuu aabbahay ahaa waxaa meeshan ka muuqata salmaan inuu nin meel fog ku dhashay yahay jaziira alcarab meel ka fog inuu ku dhashay inuu yahay nin ka dhashay usro ama qoom dabka caabuda halkaa waxaynu ka dareemaynaa inuu yahay abcad insaan can ilxaq inuu ka tirsan yihi dadba kii xaq ugu fogaa nin dab caabudaya oo tuulo yaroo jayi la yidhaahdo ku dhashay oo beershiya dhexdeeda ku taalla waxa kaloo uu sheeganayaa aabbihii inuu dihqaan ahaa macnaheedu waxa weeyaan nin reer ladan ka dhashay inuu yahay reer ladan markuu qofku ka dhasho abnaada dadka wax haystaa ay dhalaan waxay ku dawaqaan xoolaha iyo tumashada iyo magaca iyo maamuuska iyo waa qof mashquula buu noqdaa qolada malaaxidadaaba waxay yidhaahdaan kuwa adduunka waaye aakhire ku warwareega bay yidhaahdaan qolada malaaxidada ah markuu adduunka waaye bay yidhahdeen unbuu yidhahdaa aakhiraan raadacaynaya yacni waxa weeyaan qofka adduunka haysta waxa ku badan waxyaabaha qofka bini aadamkaa xaqa ka weeciya qofkaase waxba haysanini dee maba jiro wax badan oo xaqa ka weeciya waxaa ka muuqata salmaan alfarisi inuu ka dhashay qoys ladan laakiin uu xaq raadinayay qur-aanku dad badan oo qoysas ladan ka dhashay oo xaq raadiyey oo gododgaluu ka waramay fa'wuu ila alkahfi yanshur lakum rabbukum min raxmatih wayuhayi lakum min amrikum mirfaqa kuwii godka u hooyanaya asxaabulkahfiba waxay culamaai taariikh tilmaamaan inay ahaayeen qoysaskii ladnaa iyo boqortooyada raggii ka tirsanaa inay ahaayeen salmaan alfarisi wuxuu kaloo sheegay wakuntu axaba khalqi illaahi ilayh guri ladanoo qura kamuu dhalane guri lagu jeceliyo ka dhashay waxaan ahaa buu yidhi aabbahay miduu dadba u jecel yahay ilmuhu wuxuu ariiq labaad ka fekeraa markaanay faamiliga isku fiicnayn laakiin ninkani wuxuu leeyahy faamiligu waana ladnaa waana laygu jeclaa sida daraaddeed waa waxyaabo wada tilmaamaya inay ariiq labaad inuu qofku ka fekeraa inaanay sokaynin waxa kaloo uu sheeganaya uu leeyahy aabbahay jacaylkuu ijeclaana wuxuu gaadhsiiyey buu yidhi inuu iila dhaqmo sidii inan yaroo jaariyada oo xataa intuu ii cabsado mararka qaarkood uu guriga igu xidhaba sida lay ilaalinayo lay koolkoolinayo gurigaaba marmar laygu xidhi jiray taasina waxay keensatay buu leeyahay inaan diintayadii aada ugu dadaalo majuusinimada ahayd dabcaabudka ahayd ilaa yaan ka noqday buu yihi qaطini naar yacni qaطini naarku waa imaamkii oo kale ninkan dabka hurinaya ee habeen iyo maalinba usoo jeeday caabidkee dee looga dambeeyo sheekhii diintaba ilaan ka soo baxay buu leeyahay oo ninka aan ogolaanayn dabka kale inuu saacadba damo ayaa noqday buu leeyahay waxay sheegaysaa markaa majuusinimadiisii halka ay la gaadhay kadib ayaa wuxuu leeyahay aabbahay baa maalin maalmaha ka mid ah aabbahay wuxuu lahaa buu yihi dayca cadiima xoolo weyn buu lahaa xoolo badan dabeetana maalin buu guri iyo dhismuu wuxuu kaga mashquulay xoolaha iyagii kale tirada badnaa kadib ayuu aabbihii wuxuu ku yidhi yaa bunay inii qad shugiltu fii bunyaani hada alyowm can daycati
fadhab faطalichaa aabba maanta waan xoolihii iyo arrimaheenna maamulkoodii waa ka mashquuloo dhiskan baan ku mashquulaya bal maanta bax buu yidhi oo waxaad isku daydaa inaad soo ilaaliso beeraheenni iyo xoolaheenni iyo wixeenni inaad soo egeegto bal maanta isku day salmaan wuxuu leeyahay sababtaasaan gurigii kaga soo baxay waxaanu i faray bibacdi maa yuriid markii aan soo baxay anigoo kusii socda dhankaasi ayaa waxaan soo maray buu yihi qolo kaniisad ku jirta kaniisad kanaistii nasaarada ka mid ah kaniisad kiristan ah qolo ku jirta dabeetana waxaan maqlay buu leeyay kaniisadaas oo lagu tukanayo oo baryadoodii iyo alla barigoodii baan maqlay horena waxaasoo kale uma maqal buu yihi anuu diintaydun baan ku ekaaye taa kale horeba wax ugama maqal maadaama aan ahaana nin la ilaalinayo inta badan gurigiiyo meelahan iskaga xidhan waxba kama warhayn buu yihi markii aan cododkoodii iyo waxoodii maqlay ayaan isiri buu yihi war bal horta qoladana maadeegteed waxay meesha ku hayaan waa nin fitradiisa ay ku abuurantay inuu xaq raadiyo fitradiisa waa ta'amul walbaxth inuu wax baadho markaa waxaan isiri buu yihi bal eeg nimanka kani waxay hayaan waanu soo galay buu yidhi waxaan arkay sidii ay u tukanayeen iyo cibaadaadkii ay samaynayeen waxaan markaa dareemay buu yidhi dabkaygii inay tari dhaanto diintan kale ee meesha lagu haysto iyo sidan ilaahay loo caabudayaa inay ka roon tahay dabkii anigu aan hurinaya aan caabudayay markii aan arrinkoodii baan jeclaystay buu yidhi sidii aan markaa u baxsinaya u raacraacayay nimankan warkoodii ayaa cadceediiba dhacday buu yidhi maalin dhan buu ku qaatay meeshii iyo warraadinteedii cadceeddii markay dhacday oo aanan aabbana wixii uu ii diray qabanin ayaan su-aal weydiiyey buu yidhi nimankii waxaan ku yidhi waree dhaha diintan aa haysataan ee ilaahay ku caabudaysaan waxaan rabaa asalkeedii inay iga warantaan meesha asalkeedu yaallo maadaama ninkani xaqiiqo raadinaya wuxuu rabaa inuu ogaado gunteeda wadaad beershiye joogo kristana un inaanu ka qaadanin ee bale xaqiiqada diintan ba inuu soo ogaado sida daraaddeed waxaan ku yidhi buu yihi ayna aslu hada diin diintan asalkeedii iga warrama waxay igu yidhaahdeen buu yihi diintan asalkeedii sham bay jirtaa sham baa asal u ah waan ka soo noqday buu leeyahy marka waxaa meeshan ka muuqata salmaan isagoo nin dhalinyaro ah oo yar inuu yahay nin xaqiiqo raadinaya nimaan ku kalsoonayn un dadku waxay iska haystaan inuu iska haysto nebigu wuxuu leeyay laa takunuu imaca taquluuna in axsana naasu axsanna wain dalamuu dalam ha odhanina buu nebigu yidhi anagu dadkun baanu iskala soconnaa dadku hadday wanaagsanaadaanna waan wanaagsanaanaya hadday xumaadaanna waan xumaanaya wuxuu nebigu inoo tilmaamaya qofka muslimkii inuu mar kasta isagu wanaagsanaado dad baa xun inaanu xumaanin waxa uu yahay salmaan alfarisi nimaan ku dhaqmaynin inaa wajadnaa aabaana calaa umma wainaa calaa aahaarihim muhtaduunkii aabbayaasha ayaa diin haystay unaanana tii baanu iska haynayna aan ku dhaqmayn lakiin xaqiiqu raadinaya nimankii wuxuu ku yidhi asalkii diintan buu weydiiyey wuxuu kaloo yidhi bal meeshiinaasi hadday cidi ka timaado ila soo socodsiiya reerkoodii buu ku noqday aabbihii iyo baadidoonkiisiiba ku dawakay oo baadi doonayey ayuu u yimi ay bunaya ayna kunta buu ku yidhi aabba xaggaad ka dhacday meeshii aan kuu diray miyaanan kula ballamin buu yidhi wixii aan kaala ballamay meeye salmaan xaqiiqadu u sheegay aabba buu yidhi qolo halkan oo kiniisad ku jirto tukanaysaan soo maray diintoodii markii aan arkayna waabay cajab gelisay sidii aan ula joogayna cadceeddii baa ku dhacday odaygii markaa wuxuu ku yidhi laysa fii dalika diini khayr diintan aad sheegaysay aada u tagtay qolada tan khayr kuma jiro diintii aabbayaashaabaa ka khayr badan dabkaaga haysa buu leeyahy
salmaan wuxuu yidhi kalaa wallahi inahu la khayru min diinina ma yaabo ilaahay baan ku dhaartee tani iyada teena dhaanta tanaynu haysanay ee dabka la caabudayay tan baa dhaanta odaygii markaa waxbaa qobi yidhi wuxuu is yidhi wiilkaba waa lagaa kaxaysan sawkan maha arrinkii fogaaday wiilkana aada buu u jecla waana nin maalqabeena wiilkiiba wuu xidha wuxuu yihi gurigaa ku xidhnaado yuu bixin isagoo uga cabsi qaba inuu dee diinta ka baxo laakiin insaanka in la qanciyo oo wax loo sheego oo wax la bara xejisa laakiin xadhig iyo xabsi ma xejiyo xadhig iyo xabsi marunbu qofku jaanis ku helaya oo kaaga baxo hadaad tiraahdo xadhig oo xabsi oo ilaali oo caynkan intaa kuma ilaashamayo wuxuu ku ilaashamayaa inaad wax barto oo qancisid oo wax u sheegtid salmaan alfarisi wuxuu leeyahay halkiibuu aabbahay igu xidhay fariin baan u dirtay buu yidhi nimankii kiniisadda waxaan ku yidhi buu yidhi haddii shaam cid tijaari ay ka timaado dadka ugu badan ee waayadaa un dee socon jiray waxay ahayd safarada tijaarada sida safar tijaari hadduu shaam ka yimaado buu yidhi ila soo socodsiiya kadibna safar baa shaam ka yimi waa loo yimi oo waa loo sheego waxaa la yidhi safar tujaara baa shaam ka yimi salmaan wuxuu ku yidhi marka ay dantooda iyo muraadkooda dhammaystaan ee ay noqonayaan markaa uunu soo ogeysiiya safarkani markuu xoolihiisa iibsadee wuxuu soo iibsanaya iibsadee dhammaysta danihiisa ee ay noqosho ku jiraan markaa uun iisoo sheega baan ku yidhi buu yidhi markii dambe haddana u yimaadeena waxaa la yidhi safarkii waa dhaqaaqayaa waxaanay qabanayaan shaam markaas baan iska furay buu leeyay wixii ugu xidhnaa xadhigii iyo wixii ku xidhnaa buu iska furay dabeetana wuu xidhxidhay salmaan wuxuu ka tegayaa guri barwaaqaysan oo xoolo yaaliin oo maal yaallo oo magac iyo maamuusu ku leeyahay wuxuu u socdaa meel aanu garanaynin oo horeba u arag cid aanu garanayno wuu sii raacaya laakiin waxa uu u safraya waxa weeyaan inuu xaq helo noloshiisu inay mudba'in noqoto uu diin saxa helo ayaa kala weyn cunadan iyo gurigan iyo waxan oo dhan walidaalika buu safarkan bilaabay qoladii buu raacay markuu raacay wuxuu yimi shaam shaam markii uu yimina wuxuu ku yidhi war diintan cidda haysata ayaa ugu fadli badan bali tilmaama diintan maan rabaa bal inaan wax ka ogaadee cidda u aqoon yahansane ugu fiicanee xaqnimo diintan u haysata ii sheega usquf fi kiniisa baa loo tilmaamay usqufku waa nooc min bishop wadaad kaniisad haysta ayaa loo tilmaamay waxaa la yidhi ninkaas baa inta halkan joogto u roon ninkii baan u imi buu yidhi waxaan ku yidhi bu niyow diintan baan doonayaa waxa aan rabaa inaan adiga kuu shaqeeyo adna aada waxi bartid oo aan diintanna kaa barto kulana cibaadaysto kula tukado ninkii wuxuu yihi fadkhul soo dhaafde marka salmaan jay oo isbahaan ku taalla isbahaan waa beershiyada shishe ayuu lug ka soo bilaabay shaam buu tegey waa safar aada u dheer safarkaa kumaankumka kilomitira wuxuu u marayay inuu xaq raadiyo meeshii markuu yimina wuxuu yidhi war yaa ugu aqoon yahansan oo diintan si fiican u garanaya waxaa loo tilmaamay wadaad bishop oo kiniisad jooga ninkiina wuu u yimi ninkii codsigiisii buu u dhiibtay inaan kuu shaqeeyana waan rabaa buu leeyay inaad waxna i barto kulana tukadana waan doonayaa soo dhaaf buu ku yidhi laakiin tajribadiisii uu xaqa ku raadinayey waxaa galay hakad waxa uu la kulmay nasiib daro
nimaanay diintu dhab ku ahayn nin shicaarka uu taagay iyo calaamadda u taagan iyo waxa uu rumaysan iyo meeshuu matelaya dhaqankiisa kale aana isku mid ahayn waa nin dadka yidhaahdo sadaqadaysta wax la baxa kan sameeya xoolaa soo ururiya dabeetana isagu iska qaataan masaakiinna siinin cid kalena siinin waa rajul suu waa nin aan si fiican uga tarjumaynin diintii uu rumaysnaa wuxuu leeyahy ninka kani rajula saw-in buu ahaa dadku sadaqada fari jiro oo uu ku boorin jiray marka loo keenana sadaqaadkaa loo soo ururiyana isaga ayuunbaa meel iska dhigan jiray buu yihi masaakiinta muu siin jirin ilaa iyo uu ka urursaday buu yidhi 7 qilaal qilaalku waa jara weyn waa bahashan maxaa la yidhahdaa jalxad ashuun weyn 7 jalxadood ama ashuun oo waaweyn ayuu meel ku qarsaday oo urursaday wuxuu salmaan leeyahy ninkan aad baan u nacay aad ayaan u nacay waad nacaysaa qofka markaad xaqiiqadiisa ogaato qof aad salahayd diin ka dugso oo isagu dadka khiyaamaynaya oo guraya waxoogaagii masaakiinta loo ururiyey markaad aragto mabda'aya waxba uu ku nacsiinaya laakiin ninkani xaqiiqa raadis buu ahaa ninkan unbuu nacayo mu odhan maca diinta tan dadku wax khiyaamaynayaan iska wuxuu arkaya inuu ninkani si qaldan diinta u isticmaalayo dhaqanka soomaalida waxaa ka mid ah ama soomaali badan baad arkaysaa carabta ha sheegi buu ku leeyahy war carabtu dad khayr le iyo dad xunba waa leeyihi waxaa laga yaabaa un mashkilad isaga ka soo martay nin carbeed ama waxoogaa lacaga ka qaaday ama dafiray ama adoonsaday ama eryaday ama waddan ka saaray ama intaa inuu ku saleeyo diinta dhammaanteedba diinta iyo carabnimadu waa kala nooc rajulu suu haddaad la kulantay ama rajulu saw-in nin xun haddaad la kulantay macnaheedu maaha inay diintu xun tahay salmaan wuxuu leeyahay ninkii baa geeriyooday markii ay damceen nasaaradii inay aasaan baa waxaan ku yidhi buu yidhi waryaadhehe ninkani nin xun buu ahaa markaasa waxaa la yidhi maxaad ku garanaysaa waxaan idhi weli ninkani sadaqadana wuu idin fari jiray isagaana urursan jiray maxaad taa ku garanaysaa waa ka kansigiisii halkaa yaalla buu yidhi halkaa ka raadiya meeshii baa la baadhay waxaa la helay 7 ashuun ama 7 jalxadood oo uu ku jiro dahab iyo waraq ka buuxa silfar iyo fida silfar iyo gold halkaa ka buuxa markii ay arkeen bay waxay yidhahdeen wallaahi inaanan aasaynin dabeetana inta la rajmiyey baa meydkiisii la salbiyey oo iskaga tageen waa la isbaadhbaadhay kiniisadii nin kaloo sheekhaa la keenay ninkii sheekh ahaa salmaan wuxuu leeyahay ninkan dambe loo keenay nin baa lay keenay buu yidhi فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه نبالا كان يقول لي أنا أرق نين شنتو كذا موياني أحد سلمان نك شنتو كذا كموها تصحابني اللي يقاني بي هاي نين شن صلاتو كذا ده ولا قل ما أقول waxaa la yaqaanay nin 5 salaadood tukado oo ilaahay rumaysan oo saxaabiyo de ragga ku jira baa la yaqaanay idan waxa uu misaal ku bixinaya Salman al-Farisi wuxuu leeyahay maan arag nin 5 tukada mooyaane ninkaasi nin ka fadli badan noloshayda ma soo arag buu leeyahay yani saxaabada nabiga mooyaane cid kale oo ninka ka fadli badan ninkii kale lay keenay maan arag buu leeyahay nin adduunka zaahiday buu ahaa buu yidhaan adduun urursigii qiimo la lahayn aakhiro u go-ay habeen iyo maalinba ilaahay baryaya dabeetana ninkan baan waxaan u jeclaaday buu yidhi si qof loo jeclaado sida ugu badan si aanan cidba weliga u jeclaanin ayaa ninkan u jeclaaday rajulka saalixa ee qofka mabda'a uu jeclaysiiyaa rajulku hadduu dhab ka yahay mabda'u oo uu saalix yahay oo isagu multazim iyo tabaqayo wacdigiisa badani ma jeclaysiiyo laakiin waxa jeclaysiiya dhaqankan laga arkay ee ah sidoo islaamnimada uu tabaqayo ninkaas tajribadii koowaad ee ninkii hore uu la galay way ka fashisay tajribadii labaad ee uu ninkan la galay waxay noqotay tajriba naajixa laakiin
muddo markii la joogay ninkii baa xadaratul wafaat geeridii baa ku soo ururtay markuu arkay ninkii inuu xanuunsanayo oo waktigii geerida uu joogo ayaa waxaan idhi buu yidhi hebelow waan kula joogay aadna waan kuu jeclaa si aanan adiga hortaa cid u jeclaan baan kuu jeclaa maantana waxaa ii muuqata inay kugu soo ururtay il geeriyaad baad maanta la leedahay waxaan rabaa inaad ii dardaarantid ee yaad ii dardaarmaysaa mas'alada tan waxaynu ka fahmaynaa isagoo salmaan diintii fahmay oo ku dhaqmay ayaa haddana qofku wuxuu u baahan yahay xaqa ciduu la gargaarsado kelidu ma qurux badna wuxuu raadinayaa cid markuu caajiso iyadu dhiiran oo xaqa u sheegta markuu daciifo isagu xaqa u sheega cid ay diinta isu gargaarsadaan buu raadinayaa saaxiibku waa wax weyn iyo jamaacada iyo bulshadu keliduna waa wax dhib badan walidalik salmaan isagoo xaqii fahmo ninkan aada u jeclaad oo diintii ka gartay ayuu haddana wuxuu ku leeyahay ninkii adiga waa kana waad sii socotaa laakiin weli saaxiib baan u baahnay ee yaad igula dardaarmaysaa maxaad se ii dardaarmaysaa maxaad ifaraysaa ninkii wuxuu ku yidhi anigu maanta garan maayo mabda'an aan haysto cid haysato dunida korkiisa joogta garan maayo dadkii way dhinteen buu yidhi xaqa ku sugnaa waa madheen waxaana soo hadhay dad diintii bedelay oo ka tegey nin uun baan iminka sii garanayaa buu leeyahy raggan xaqa ku tuhmayey ninkaas wuxuu joogaa buu yihi mawsaltu waa magaaladana taqaaniina ciraaqa shaamna markan wuu joogaa nin mawsil jooga un baan garanayaa buu yihi ragga aan isleeyahay xaq baa kusii hadhay raggii kale madhe eh kaas baan garanayaa buu yihi salmaan alfarasi awalba xaq buu u socday meesha waxaa ka muuqata inta badan ahlu xaqu inay dad yar yihiin dadka inta badanina inay iska lunsan yihiin salmaan awalba beershiya wuxuu lugta uga soo bilaabay inuu xaq raadiyo maanta oo loo sheegay saaxib kale ay diinta isku gargaarsanayaanna wuu raadinayaa salmaan shaam buu ka tegey mawsil buu tegey markuu ninkii u tegeyna wuxuu ku yidhi ninkii kale waa dhintay saaxiibkii ahaa markii la aasay buu iskaga tegey shaam buu qabtay shaam ninkii ugu tegey wuxuu ku yidhi warniyahow waxaa ii kaa soo dardaarmay sheekhaasi hebel lo odhan jiray caynkaa iyo caynka ahaa iyo aan la joogay markii uu geeriyoonayaan ku yihi ii dardaarno adaa la ii kaa soo dardaarmay ninkii wuxuu ku yidhi bes haddii hebel kulu soo dardaarmay kaalay ila joog aniga ila joog ninkii saddexaad weeyaan kana waan la joogay buu yidhi fawajadtuhu khayra rajulin calaa amri saaxibi nin wanaagsan oo halkii saaxiibkii maray isna maraya buu ahaa buu leeyahy waa rixlaad ayuu ku jiraa xaq lagu raadinayo rixlo ka gedisan kuwa maanta inta badan dunida la galo ninkii muddo markuu joogay ayay isagana nin kaloo da-un buu iska ahaaye tiisii soo ururtay salmaan haddana kelinimadii baa dhibtay mar kaluu su-aashii bilaabay uu leeyahay warniyow adigana waan ku arkaa geeridii waa kugu soo socotaa arrinkaygana waad ogay sidaan kuugu imina waa kuu muuqatay dee yaad kale maanta ii dardaarmaysa yaad adna ay bunay wallaahi ma aclamu rajula calىa mili ma kuna calayhi ilaa rajula binasiibiin ninkiina wuxuu ku yidhi maanta anugu garan maayo cid haysata wixii anagu aanu haysanay ilaa iyo nin jooga magaalo kale oo iyana nasiibiin la yidhaahdo mooyaane ninkaa raadcayso oo qabo salmaan weli baadi goob xaqeed buu ku jiraa safarkiisu haddana xidhxidhay 3 nin baa geeriyooday kii afraad buu u socdaa salmaan wuxuu tegay nasiibiin markii saaxiibkii la aasay ee uu geeriyooday ayuu nasiibiin qabtay nin baan u imi buu yidhi isna raggii xaqa ka mid ah
oo isna raggii xaqa rumaysnaa ee haystay ka mid ah. ila joog buu isna yidhi. ninkii nasiibin buu isna muddo la joogay. waxaan helay buu yidhi nin saaxiibadii wixii ay ku sugnaayeen isna ku sugan. isna markaan muddo la joogay buu yidhi baa geeridii ku soo ururtay. markaasaan ku yidhi buu yidhi hebelow waad ogeydo hebel baa hebel ii dardaarmay, hebel kalena hebel buu ii dardaarmay, hebel kalena Mosul baa laysoo dardaarmay, kadibna adaa laysoo dardaarmay, waa ninkii afraad. bal yaad adna ii dardaarmaysa, yaad adna ii dardaarmaysa. wuxuu ihi wallaahi ma naclamu axada baqiya calaa amrina aamuruka an taatiyahu ilaa rajula bicamuuriya. meesha camuuriya la yidhahdo, camuuriyadii caanka ahayd ee khilaafata haaruun rashiid dhulkii la furanayay ahayd. camuuriye mooyaane meel kale cid kale oo aan kuu tilmaamo garan maayo. magaalada camuuriya la yidhaahdo beledkaasaa ninku ogaa xaq haysta. dee haddii aad jeceshahay ninkaa aad buu ku yidhi. saaxiibkiisanina waa geeriyooday, dabeetana waa ka safray. waa safarkii imisaad markaa? waa kii shanaad. yani sham buu bershiyu ka yimi oo sham buu yimi. ninkii hore ula joogay wuu dhintay, kii labaad ula joogaa dhintay. wuu ka safro ciraaq buu qabto Mosul buu tegey, kii ula joogay baa dhintay. wuu ka safro nasiibiin buu tegey, waa sham iyo baa udhexaysaa Mosul dhexdeeda. nasiibiin ninkii joogaa dhintay. wuu ka tago camuuriyuu qabtay. camuuriye ninkii joogay ayuu yimi, wuxuu leeyahay ninkii baa soo dhaweeyey isna xaq uu tilmaamay. waa la joogay muddo. markuu la joogay ayaa wuxuu yidhi waxaan ku hamiyey bal waxoogaana xoolana inaan dhaqdo. waxaan dhaqday buu yidhi markaasi in lo ah iyo gunayma, neef yaroo adhiya ama adhi yar, baqaraat iyo gunayma ayaan dhaqday buu leeyahay. intii isagoo dhaqday lana jooga sheekhaasi jooga camuuriya ayaa isagana geeridii ku timi buu yidhi. markaasaan idhi buu yidhi bal adna dardaaran, yaad i faraysaa xaggaan see u kaca. wuxuu igu yidhi buu yidhi niyow aniga waa soo ururtay. cid aan kuu tilmaamo mabda'ii aanu haysanay, diintii masiixiga ahayd ama kristanka ahayd oo aan la bedelina rasmigiiya, cid aan kuu tilmaamo haysata ma haya buu yidhi. waa wakti ay faaftay yani diinta masiixiyadda bedelkeedii waxaa ka qayb qaatay boqorkii Qustantiin la odhan jiray iyo shirkii Niqiya la odhan jiray. shirar baa lagu bedelay, boqor aan isagu diinba haysan baa nimankan isugu yeedhay. dabeetana 2,000 oo qof dad ku dhadhow baa isu yimi. 2,000 oo qof 371 kooxa baa dhan isu raacday. kooxdaasuu taageeray. waa kooxdii lahayd ciise inay ilaah weeyaan iyo waa dabeeca ilaahiya, dabeeca kale buu wada leeyahay. kooxdaasuu taageeray. kooxihii kale waxaa lagu soo rogay dowladdii Romanisku markaasi in kanaa'istooda lala wareego, kutubtooda la gubo, wax walba la cadaadiyo, hardaqa lagu xukumo, zanaadiqa lagu xukumo. kooxdan yaree dowladda raacsiisan iyo madhabkeedii baa faafay. idan meelahaasi Romanisku ka yara foguun midhadh ku libdhay oo wadaadaa mooyaane cumuuman diintii dowladda dunida haysata marka kan. markaa ninba nin buu u tilmaamaya, uu leeyahy uu ninkaasba in yar u qarsoon tahay oo aan filaya raggii ragga hore ka soo hadhay inuu yahay. akhiiran ninkan markii uu yimi, ninkani wuxuu leeyahay anigu cid kaloo aan kuu tilmaamo garan maayo, laakiin dardaaran kale ayaan ku siinaya. niya waxaa soo galay waqti nebi uu soo bixi doona baa soo dhowaaday. nebigaas oo diintii nebi Ibraahim dadka ku soo celin doona, dhulka carbeedna ka soo bixi doona, una soo hijroon doona meel dhul bayna xaratayna, dhul labadiisa dhinac ay xara tahay. xarada waxaa la yidhaahdaa dhulkan fulkaanuu markuu ka qarxo buuraha sisibka noqda. madiinana waxaa la yaqaanaa labadeeda dhinacba in volcanayaal ka qarxeen dabeetana ay sisib tahay.
ninkaasi nebigaa soo bixi doonaa buu yihi wuxuu usoo hijroon doonaa dhul bayna xaratayn leh geedka timirta la yidhaahdana uu aada ugu badan yahay. nebigaasi wuxuu leeyahay buu yidhi calaamado aan kaa qarsoomi doonin. calaamadihiisaasi waxaa ka mida buu yidhi hadiyadda wuu qaataa ama se wuu cunaa, sadaqada se ma cuno. hadiyadda wuu cunaa, sadaqada se ma cuno. labadiisa garab dhexdoodana khaatamu nubuwa, shaabadii nebinimada ayaa labadiisa garab dhexdoodana ku taalla. haddii aada awoodi karto dhulkaa qabo oo dee rajada ay nebigaasi soo bixi doonaan ku noolow buu leeyahy. anuu cid kaloo aan kuu tilmaamo ma hayo. salmaan alfarisi albaabkii culammadii kristanka ee uu dhex marmarayay waa ka soo oodanta, welina xaq buu raadinayaa. xaqa cimrigiisii qeyb buu ku soo qaatay. intaas oo dhul ana wuu maray isagoo xaq raadinaya. haatanna xaqii buu ku talagalay inuuba natiijadiisa weli sii raadiyo. waxaan go-aansaday buu yidhi markaasi inaan safro oo dhulkaa la tilmaamaya aanu safro. ninkii camuuriya ay wada joogeen markii uu geeriyooday ee la aasay ayaan dhulkii camuuriya waxaan sii joogay buu yidhi in muddo ah. kadib ayaa safar yimi qabiilada kalb la yidhaahdo ee carbeed, niman tujaaro ka tirsan baa yimi. nimankii carbeed baa waxaan ku yidhi buu yihi waryaareen haddaan xoola idin siiyo may qaadaysaan oo dhulka carbeed may geynaysaan? haa baa la yidhi. loodaa iyo adhigaasaan haystaa buu yidhi qaata, idinku qaata lood iyo adhiganba. bilaad ilcarab dhulka caynkaa iyo caynkaa u eg igeeye. waa ka aqbaleen. waxaynu joognaa mar kale oo salmaan safar u xidhxidhanayo. safarkan wuxuu hanti lahaaba wuu ku bixinayaa. inagu safaro badan baynu usoo xidhxidhanay, laga yaabo waxaynu hanti lahaynba inaynu kusoo bixinay iyo wax loo amaahdayba. laakiin safaradaasoo dhamme waxay ku salaysnaayeen xoog sitag iyo beris raadin. salmaan laakiin weli safarkiisu wuxuu ku salaysayay inuu xaq raadiyo, naftiisana uu badbaadiyo. waxa uu markan taagan yahay wixii uu xoolo haystay ee yaraayo uu haystay oo dhan inuu qadimo liajli meel uu rajaynayo in nebi ka soo bixi doono inuu u dhowaado tago. saas buu nimankan xoolihiisii ku siiyey. dabeetana way soo kaxeeyeen. 5 ninoo horena wuu soo maray. marka nimankii carbeed way khiyaameeyeen, qolo qowlaysataa bay ahaayeen. dhexda markay marayeen ayuunbaa inta xadhigga la isugu jiiday ayaa la yidhi waa addoon yar aanu ka soo iibsanay camuuriya, yaa naga iibsanaya. salmaan oo xaqii raadinaya ayaa isagoo addoonnimo loo iibiyey. nin yahuudiya bay ka iibiyeen oo ay addoonnimo uga iibiyeen. idan isagoo wuxuu hanti haystay bixiyey oo weli xaq raadinaya ayuu haddana dhibtan la kulmay cusub ee ah inuu addoonnimo ku dhaco. oo ninkii xorta ahaa ee reer waxhaystee ladan ka dhashay ee xaq uu raadinaya u safray maanta wuxuu taagayaa addoon. waxaa laga yaabaa soomaalida iyo dadka maanta jooga markay addoonka maqlaan inay ka fekeraan nin madow. war addoonku nin madow ma ahaan jirin. addoonku ninkii laga xoog badan yuunbuu ahaan jiray. dunidii hore marka la isku duulo cid la qabsado ciddaa xoolahooda iyo dumarkana waa la kaxaysan jiruun. raggana addoonnimuun baa loo iibin jiray. ama white man ahaw ama bersian ahaw ama african ahaw ama waxa doonta ahaw haddii lagu qabto waa lagu iibinaya una waa lagaa xoog batay. salmaan nin madow maaha nin bersiana buu ahaa. suhayb arumi saxaabigii la odhan jiray nin romanaba. laakiin baabkaa laysuma eegaynin cidaad ka dhalatay iyo ma caddaan baat iyo ma madow baat iyo warkaasi ma jiro. haddii lagaa xoog batay waa lagu iibinayay. salmaan alfarisi waa la qabtay, xoolihiina waa laga qaaday. dhulkii carbeed markii la yimi iyo yahuudiya meelihii ay deganaayeen waa la iibiyey. nin yahuudiya baa laga iibiyey. ninkii yahuudiga layga iibiyey buu leeyay waxaan arkay inuu horta dhul timir iyo waxla baan imi, raja ay gashay buu leeyahay ah inaan soo dhadhowaaday. geed timiraadkani waa geed cajiiba. sheekh annabulsi baa wuxuu tilmaamayaa
timirta hadda madiina ku taallaa buu yihi waxaan rajaynayaa inay tahay uun tii nebi maxamed markuu noolaa ku taallay waxba iska bedelin buu leeyahy waayo timirtu waxay ka mid tahay dhirta cimriga dheer leh ilaa 6,000 sannadood bay jirtaa bay ragga bar sheegayaan yani 10,000 sannadood bay jiri kartaa lacalla inkastoo imika laga yaabo in cimaaradaba lagu bedelay iyo daare iyo wax laakiin haddana waxaa sii hadhay un inay yihiin baa suurtagal ah tii waagaasii ku taallay un yani waa timirtu waa geed aada u cimri dheer oo aan isbedelin ninkii yahuudigaa markii layga iibiyey ee aan timir iyo wax arkay waxaan rajeeyey buu yidhi meelihii uu saaxiibkay ii sifeeyey meelo la mida un inaan imi anigoo ninkii maalin la jooga ninkii nin kaloo yahuudiya ayuu ka sii iibiyey reer banu qurayda ayuunbuu akhiiran gacantooda ku dhacay riwaayaadka qaarkoodna waxay ku koobsanayaan inuu ninkaa hore uun meeshan lagaga iibiyey ahayd nin kale un baa u yimi calaa kulli xaal waxaa muuqato un inuu yimi banu qurayda inuu yimi waa magaaladii madiine ahayd dabeetana ninkii yahuudiga layga iibiyey buu yidhi ayaa nin u yimi ninkan u yimi waa in adeerkii buu yidhi oo reer banu qurayda ah fabtaacanii minhu isagii buu iga iibsaday buu leeyahy nin reer banu qurayda oo 7 ayaa iibsaday dabeetana madiina la igeeyey buu yidhi markii hore meeshu madiine may ahayn meel yahuudi deganta lacalla inay khaybar meelahaasi ahayd oo suurtagal ayaa markii hore lagaga iibiyey dabeetana ninkii nin kaloo ilmaadeeriyiin baa u yimi wuxuu yidhi ninkan xooggan ee addoonkaa iga iibi kii baa iga sii iibsaday buu yidhi dabeetana waxa la geeyey waa addoon labaad buu markaa loo sii iibsanaya isagoo gacantii labaad ee addoonnimo ku jira ayuu yimi magaalada madiina markaan madiine imi buu yidhi ayaan waxaan ka dareemay buu yidhi magaaladani inay tahay magaaladii lay sifeeyey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa makaa laga soo saaray buu yidhi makuu muddo joogay laakiin wax wara anigu kamaan maqal buu yidhi waayo waxaan ahaa nin addoona oo beer qoda oo meeshaasuu dee lagu shaqaysto jooga oo aan war badan magaalada iyo waxa wararka ka imanaya maka iyo waxa aan ka war haynin maalintii dambe anigoo geed dusha ka saaran buu leeyay geed timireed dushii anigoo saaran oo ninkii lahaayee aan addoonkiisa ahana uu meesha hoose fadhiya buu yidhi ayaa nin kaloo ilmaadeeriyiin u yimi markaasuu wuxuu yidhi ya fulaan qaatala allahu bani qayla wallahi inahum alآana lamujtamicuuna bquba calى rajuli qadima calayhi min makata اlyowm yazcumuuna anahu nabiy nin kale u yimi oo warramayoo leh balaaya allaha ku soo dejiyo nimankii reer hebele aws iyo khasraj buu ujeedaa ansaartii nimankii reer hebel hadda waxay ku wada urursan yihiin quba meesha la yidhaahda bay joogaan nin baa uga yimi maka sheeganaya inuu nebi yahay yacni wuxuu ka warramayaa salmaan alfarisi isagoo weli addoon ah oo geed timireed saaran oo sayidkiisiina hoos joogo oo geedkii ka shaqaynaya in war yimi sayidka loo sheegayo oo la leeyahay magaaladii madiine ahaa waxaa soo galay nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii aan warkii maqlay buu yidhi akhadatni alcurawaau ay alximya waa qandha igu jabtay buu leeyahy markaan warkii maqlay farxad daraaddeed ilaa aan u maleeyey buu yidhi inaan geedkaba ka soo dhacayo geedkiiba intaan dhaqso uga soo daadegay ayaa ninkii ku yidhi buu yidhi anigoo islowsanoo ordaya intaan geed ka soo daadegay maada taquul maada taquul war maxaa tidhi warkii igu celi baan leeyahay buu yidhi ninkii sayidkaygiioo halkan taagan baa cadhooday buu yidhi oo dhir baaxu labada indhood ka jaray addoonkan geedka saaran ee la rabay inuu geed ka shaqeeyo ee wardoonka ah ee labada nina iswaraysanaya dhex ordayeele maxaa tidhi ayuu ka cadhooda wuxuu yidhi dhir baaxuu indhaha iga soo jaray isagoo igule buu yidhi maa laka walihaada aqbil calaa camalik waar adiga iyo waxan maxaa idinkala galay oradoo shaqadaada qabsa buu igu yidhi buu yidhi waxaan idhi buu yidhi qultu laa shay inamaa aradtu an astathbitahu cama qaal waxba igama geline wuxuun baan rabay inaan warka runtiisa ogaado baan ku idhi buu yidhi muddu salmaan addoonnimadiisii haddana iskaga jiray waxoogaa baan urursaday buu yidhi dabeetana
galabnimadii markay fiidkii noqotay baan tegey buu yidhi quba ayaan ugu tegey buu yidhi nebigoo jooga waxaan ku yidhi buu yidhi waxa ii soo gaadhay inaad nin saalixa tahay asxaabtaadiina inay kula socoto dad dee qariiba aad tihiin oo magaalada aan qariib ku ah qariibkuna kollayba waa baahan yihi waxoogaa sadaqo aan ururiyey baan hayaa waxaanaan arkayaa cid la siiyey inay idinku u xaq badan tihiine dee bal sadaqadan qaata baan ku idhi buu yidhi waa waxoogaa sadaqo aan idin siiyey markii aan u dhiibay buu yidhi intuu xaggaa isaga duway ayuu saxaabadiisii wuxuu ku yidhi buu yidhi kulu cuna isna gacantiisa wuu ka haystay buu leeyahy salmaan tilmaamtii ninkii camuuriyo joogay uu soo siiyey maxay ahayd dhul bayna xaratayn oo timir leh ayuu ka soo bixi doonaa nebigaasi sadaqadana ma cuno hadiyadana wuu cunaa khaatimu nubuwana dhabarkuu kaga yaala salmaan arrimihii buu rabaa inuu baadi doono markaan arkay inaanu cunayn buu yidhi ayaan idhi buu yidhi ha tani waa horta mid ka mid a arrimihii waa noqday buu yidhi nebiguna madiine ayuu qabtay buu yidhi maalin kale ayaan haddana u imi waxaan ku yidhi buu yidhi waxaan arkay buu yidhi inaad cunaynin sadaqada hadiyaddan baan kuu sidaa ee qaado hadiyaddii buu nebigu cunay buu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saxaabadiisiina waxbuu ka siiyey markaasaa naftaydii waxaan ka idhi buu yidhi haataani snataan halkaa horta labaad haysaa baan idhi buu yidhi laba ayaa kuu caddaaday beri dambe maalin dambaan u imi buu yidhi xabaalii baqiici alqarqad nebigoo jooga oo jinaaso soo raacay meyd soo raacay oo laba maro sita oo saxaabadiisii dhex fadhiya baan u imi buu yidhi markaasaan salaamay buu yidhi dabeetana halkan dhabarkiisaan ku warwareegay buu yidhi anigoo eegeegaya wuxuu rabaa inuu arko dhabarkiisa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh labada garab dhexdooda wuxuu ku lahaa khaatimu nubuwa oo ah shaabad nebinimo timo u baxay sidii khaatamka ama maxaa la idhahaa shaabadda sideedoo kale u samaysan oo nebinimadiisa tilmaamaya maxamedan rasuulullahi ay qoran tahay waxaan eegay buu yidhi dhabarkiisii khaatamu nubuwa ayaan ka egeegay buu yidhi anigoo baadhbaadhaya ayuu i arkay buu yidhi ninkaygan dee kolba xagga dambe ka wareegaya qof waad garanaysaa un dee kolba intuu dhabarkaaga istaago raba inuu ku eego markaasuu maradii ka rogay buu yidhi maradii uu sitay buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi ka rogay waan eegay buu yidhi khaatamu nubuwana waan arkay dabeetana intaan ooyey ayaan anigoo dhunkanaya kusoo foorarsaday buu yidhi markaasuu igu yidhi buu yidhi war soo wareeg wuu isoo wareejiyey markaasaan sheekadaydii uga sheekeeyey buu yidhi sheekadani aanu hadda wadno ee ka soo bilaabmaysay isbahanin isagoo jooga qaryadii jay la odhan jiray sheekadaasaan tilmaamay buu yidhi markaan sheekadii u sheegay sida aan ibnu cabaas hadda kuugu sheekaynaya markaan nebiga ugu sheegay ayaa faacjaba rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam an yasmaca dalika asxaabu wuxuu nebigu jeclaystay buu yidhi in saxaabadoona maqlaan wuxuu yihi war balkaalaya dhegaysta bal ninkaan warkiisa warkii baan akhriyey buu leeyahy saxaabadii o dhan baan warkii u sheegay addoon baan ahaa buu leeyahy salmaan addoonnimadii baan ku mashquulay dagaalkii beder iyo uxud toona kama qeyb gelin maalintii dambe ayuu nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi katib ya salmaan salmaanow mukaataba samee mukaatabadu waxa weeyaan ninka addoonka oo isagu is-iibsada yani waxa weeyaan cidduu addoonka u yahay ayuu heshiis la gelaya wuxuu leeya niya waan intaasoo xoolaa ku siiyo dee ifasax markaad intaasoo xoolaa ii keenta buu leeyahy fasax baa tahay wuxuu igu yidhi buu yidhi nebigi katib ya salmaan ninkan yahuudiga ah heshiisa la soo gal mukaataba la soo gal qoraal la soo samayso oo wax ku soo heshiiya ninkii baan u imi buu yidhi kitaabadii baanu wada samaysanay wuxuu yidhi buu yidhi waxaan kugu sii daynayaa 300 oo geetimireed inaad halkaa bannaan ka beertid oo cusub iyo 40 wiqiyadood oo dahaba inaad ii keento wuxuu rabaa ninkan yahuudiga inuu ninkan dhigmiirto aanu sii daynin saasi daraaddeed wuxuu leeyahay dee diin ahaana wuu arkaa ninkani xag uu sii socdo walidaalika wuxuu yidhi waxa aan kaa rabaa 300 oo geetimireedna inaad beertid
afartan waqiyadood oo dahabana inaad ii keentid nebigaan u imo waxaan ku yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ninkii heshiis baa la soo galay heshiiskuna intaasuu sheegaya nebigu saxaabadii buu la hadlo wuxuu yidhi aciinu akhaakum war walaalkiinu soo gargaara raggii waa baxeen dabeetana waxaa la ii keenay buu leeyay dhirtii yaryaradee timirtee la abqaalayay nin 30 geedii keena mid 20 keena mid 15 keena yani waxaa loogu deeqayaa dhirtimireedkii waa beeralaydii kale ee muslimiinta ahayd ee ansaar ahayd ayaa waxay igu soo deeqday buu yidhi wadiyadii ama dhirtii yaryaradee timirtee la beerayay ilaa iyo 300 geed ba la keenay buu yidhi dabeetana nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh tag salmaanow meeshii lagu gurayay samee markaad dhammaysana ii yeedh adigu waxbaa ku ridine waan baxay buu yidhi wuxuu soo sameeyey dee meesha la abqaalayo waa tan inta la qodo meel yaroo biyo xidhana loo sameeyo 300 oo god oo geetimireed lagu rido ayaan soo sameeyey buu yidhi markii aan soo dhameeyey baan soo noqday nebigaan u imi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dabeetana ii dhiidhiib buu yidhi adigu dhirtii baan u dhiibay mid walba gacantiisa ku abqaalay buu leeyahay nebigaa gacantiisa ku sameeyey salmaan wuxuu leeyahay ilaahay baan ku dhaartay inaan geed quri iga qaadhin buu yidhi wuxuu nebigu ii beeray 300 geed ee nebigu u beeray xabadi kama xumaanin ee 300 ba waxay noqdeen dhir baxaysa oo koraysa maalintii dambe ayaa waxa dhacday buu yidhi nebigu dagaaladii uu galay maqaasidiisii mid ka mid ah intuu ka yimi ayuu wuxuu yidhi buu yidhi waxaa loo keenay xabad beeda in leegoo dahaba dabeetana wuxuu yidhi buu yidhi maa facala alfarisiyu lmukaatib ninkii farisiga ahaa beershiyanka ee kitaabada galay muxuu sameeyey waa la ii yeedhay buu yidhi dabeetana wuxuu igu yidhi buu yidhi nebigu qaado tan oo iskaga soo bixi intaan sidaa u eegay baa waxaan ku yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo dee intan xagee kaga dhacaysa 40 waqiyadood baa laga rabaaye wixii wax yar un bay dhahaayeen dabeetana intaan eegay baa waxaan ku yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ayna taqacu haadihi ya rasuula allahi mima calay waxa laygu leeyahay inta tani xagee kaga dhacaysaa nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi khudha fa ina allaha sayu'addiiha bika canka qaado ilaahay baa kaaga bixinaya intaasiya intii baan soo qaatay buu yidhi miisaankuun baa la saaray mise intiisiba waa ka badatay waladii nafsu salmaani biyadi 40 awqiya fa awfaytuhum xaqahum wactaqtu 40 waqiyadood bay sidii ku noqotay buu yidhi intii yareedaan islaa waxba noqon mayso ilaahay baa barakeeyey uu nebigu yidhi qaad adigu iyo u geeyo miisaama iyadaa kuu noqon doontee waa geeyey buu yidhi waa la miisaamay 40kii bay noqotay xaqiisii oo dhan baan u oofsaday dabeetana markaas baan ka soo xoroobay buu leeyahay salmaan alfarisi markaa dagaalkii koowaad ee muslimiintu ay galaan ee isagu ka qayb qaataa wuxuu ahaa ghaswatu khandaq culamaai taariikhna waa kuwa sheega inkastoo riwaayadu sanad ahaan aanay asixin laakiin culamaai taariikh waxay sheegaan inuu ahaa ninkii lahaa makiidadii lagu badbaadiyey maxay madiina yani ninkii keenay farsamada ah ciidanka intan le kama hortegi karayne ee magaalada madiini waxay leedahay laba dhinac waa buur didib ah saa daraaddeed farduhu ma roori karaan meel farda lagaga soo weerari karo ama ciidamo caynkaasi kaa soo geli karaan ma aha dhanna waa beero oo beer baa xidha iyadana basaantiintu markay isku baxdo iyana maaha dhulu ciidan banaan uu ka soo dagaalgeli kara maaha dhanka kale oo qura ee buurta yar sirca la yidhaahay ku taalo dhankaasoo quray magaaladu ka furay wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow dhankan furan aan god faras iyo waxba toonaanay ka tallaabin aan ka samayno waa tii dhankii loo qaybiyey saxaabadii inay godkaasi sameeyaan oo khandaqa meeshii loo bixiyey ansaar iyo muhaajiriin baa qoloba dhulka qeyb baa la siiyey nin walba in baa loo mitiriyey intaa salmaan nin xoogan buu ahaa dabeetana ansaar iyo muhaajiriin baa isqabsaday oo qoloba waxay tidhi salmaan anagu naga mid yiye anagu naga mid yiye nebigu waa markuu lahaa salmaanu mina ahla lbeyt salmaan xaggaygu ka tirsan yahy buu nebigu yidhi ahlu beytku ka tirsan yahy salmaan ahlu beytka ayuu ka tirsan yahay maalintaa laga bilaabo dagaaluu nebigu galay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi salmaan kama maqnaanin qisatu salmaan sida imaamu axmed uu ugu soo aroorinayo ee musnadkiisa yacni dhul badan oo kale qisada ku soo aroortay laakiin waxaan qaadanay lafdigii ku soo arooray
musnadu imaamu axmed waa sidaasi. qisada tan marka aan soo duuduubo waxa ay sheegaysaa insaanka saadiq ee runta sheegaya ee xaqa raadinaya inuu ilaahay subxaanaه watacaala xaqa haleeshiiyo. wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana. ilahay wuxuu leeyahy kuwa annaga taayada u dirire u dagaalama ee raba inay xaqa helaan xaqaanu ku hanuuninaa baa la leeyahy subxaanaه watacaala. waxay sheegaysaa qofka saadiqa ah inaanay caraaqishu dhib ku noqonin. salmaan wuxuu la kulmay nimaan diinta ka run sheegaynin. wuxuu kaloo la kulmay gurba, meel diintuba ku yarto kolba nin un la sheegayo, meel heblaayo 1,000 kilomitr la soconayo, meel heblaayo nin la sheegayo. intaasoo 1,000 kilomitr buu salmaan socday oo aan wax la wataa jirin ee cagahooda lagu soconayay, isagoo mar kastaba raadinaya qof xaqa ugu gargaara. taasi waxay sheegaysaa qofka muslimka ah iyo culammadii muslimiinta hore markaad u fiirsato rixlaadka ay xaqa iyo diinta u geli jireen waxay ahaan jirtay rixlaad qaadheer. walidalik baa maa waraa'a nahar culamaa intay ka soo safarto qaban jirtay caalamulislaam oo dhan ku mari jirtay. marka taariikha culamaa ilxadiid akhrida waxa lagu odhanaya hebel 20 jeer buu baqdaad soo galay, 20 kaba lug buu ku soo galay. xagguu ninkan 20ka jeer ka soo gelaya? 20ka jeer wuxuu ka yimaadaa Samarqanda waa Raashiya, meelahan iminka dowladaha yara googo'ay iyo Bukhaara iyo dhulkaasa laga soo lugeynayay. dabeetana baqdaad baa lagu galayay, Maka iyo Madiina lagu galayay, haddana Shaam baa lagu galayay, Falastiin iyo dhulkan baa lagu tagayay, Masar baa lagu galayay. intaas waxa la raadinayay diin iyo xaq in la raadiyo. waxa loo sheegayay mararka qaarkood sanad culuwiyo qura ah. sanad maxay ah? sanad alxadiid xadathana fulan xadathana fulan ayuu wuxuu leeyahay halkan adiga kaa qaadanaya mar hadduu nooliyo sheekhi aad ka soo qaadatay maan isaga afkiisaba ka soo qaado. inuu sanadka gaabsado daraaddeed ayuu u lugeynayay. waxay qisadani tilmaamaysaa cilmigu wax la raadceeyey inuu yahay. waxay tilmaamaysaa qofka murabbiga ee caqiide fiican leh wax loo lugeeyo inuu yahay. waxay tilmaamaysaa saaxiibka diin kugu dhaama qof loo socdaale inuu yahay. waxay tilmaamaysaa maalka inuu yahay diintu wax la siisto oo maalkaagoo dhan intaad iibiso si aad diin saxa iyo caqiide saxa iyo cibaado saxa u hesho in loo halgamo inay tahay. waxay tilmaamaysaa caqabaadka qofku inaanu ku niyad jabin. insaanka caasimkee wax go-aansadaa inay mashkiladii kaa hor timaado. salmaan 5 nin oo 5 magaalo joogu u kala lugeeyeen ku tilmaamaynay. labadii koowaad mooyaane 4 kale buu kala lugeeyay. salmaan lugtuu nebiga u lugeynayay inuu raadceeyo addoonnimay geliso oo la kala iibsanayay. kullu haadihi almashkilaat kamay joojinin wixii uu raadinayay. waxaynu garanaynaa qofku hadduu xaqa raadiyana in ilaahay subxaanaه watacaala u gacan qaabto. niyada qofka muslimka ah baa khayru min camali. niyadu hadday dhab tahay ilaahay baa subulka kuu fudaydinaya. laakiin ilaahay wuxuu u taalacanayaa intay niyadaada tani saadiqatay, intaad run sheegayso. ma yare labaclabac baayo caruurta iyo reerkan kaxaynaya xaggeed geynaysaa waddanka iyo dhug odhanaya waan meesha beriskaa cidhiidhiya oon iskaga tegaynaa meel lasii joogo badan maaha. yacni niyadu intay adag tahay ay ku adag tahay inay dhab ka tahay in diin la raadinayo. intaad ogoshahay meel nebi uu filayo inuu ka soo bixi doono ayuu adhigiisii iyo loodiisiiba siistay inuu niman raaco oo la tuso. intay dhab inaga tahay inaynu hantideenna iyo waxeenna isticmaalno si carruurteennu u hanuunto, si aynu xaqa ugu sugno, si ay diin u bartaan. intay dhab inaga tahay inaynu u gaajoonno, inaynu caqiidadeenna saxanno, inaynu diinteenna hagaajisanno. waxaan u malaynayaa qisada tan walaalaha mu'tamarka qisadan doortay runtii inay dalaaladeeda leedahay. weliba dadkeena galbeedka jooga inay dalaaladeeda u leedahay. ragga badh baa inay halka yimaadaan safarro ku dhow kaa salmaan u soo maray, imise layn ka qarxeen oo imise magaalo tegey oo bariya galbeedba dunida ka maray oo imise dayuuradood oo imise goor la xidhay oo imise waddan soo maray. akhiiranna goobtan baraf kale ee qabow soo gaadhay, berisku helay iyo xoogsi. laakiin walilaahi alxamd haddaynu weli diintii hayno waxaa habboon markaasi inay siday ugu adkay dadkan diintu inayna ugu adkaato.
salmaan guri lagu ladan yuu ka tegey waxaan uga tegay inuu xaq raadiyo idan inuu xaqu noqdo shay agteenna qiimo ku leh oo maalintaad aayad hesho xadiis hesho qof wax ku dhaamo oo aada dadka culamada ah samtigoodaa wax laga fahmaa yani waxaa laga yaabaa nin caalim aan kelmad kuu sheegin 2 habeenoo aad meel ula hoyato ama 3 habeenoo aad la joogto cibaadadiisa iyo dhaqankiisu inay kaaga raad bataan 20 kitaaboo lagu akhrinayay oo intaasoo sannadood lagu soo marinayay walidaalika waxaa habboon inaynu wanaagu uu ahaado waxa aynu raadcaynayno ee goobayno inuu wanaag ahaado aakhirana inay noqoto meesha lama huraanka ah aynu ku xisaabtamayno sidaynu u hagaajisan lahayn wallahu aclam billahi tawfiiq جزا الله شيخنا الشيخ مصطفى حاج إسماعيل خير الجزاء وبارك عليه الله سبحانه جل وعلا أننا هنقدر كوي محاضرة قيمك حقوقاتها صدق سؤالات بان إن شاء الله تعالى شيخ ويدين دونا مركز دوينا وعن عطسنا إن فلسطين حيا لي محاضرة دي سؤال هدي أيام إن وصعد إن شاء الله تعالى يوجسيسية مهمة مركز هلا فلسطين ولا ليال سؤال شكوى سائلك حولي هاي waxyaabihii loo sheegay ama salmaan alfarisi loo tibaari waxaa ka mid ahayd calaamad nebiga sala allahu calayhi wasalam dhabarkiisa loogu sheegay haddaba calaamadaasi maxay ahayd calaamad waa khaatam nubuwa waa calaamad tilmaamaysa inuu nebi maxamed nebi yahay oo dhabarka kaga taalay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh kutubu siirana kaad baa dhabaad ka heli doonta insha allahu tacala allahu aclam جزاك الله خيرا سائل كله وحولي هاي طبعا dhalinyarada ay su'aashanu ka timi sheekh waxaan nahay dhalinyarada tiro badan oo dhulkan deegaan ma joogta anagoo og diinta islaamku inay xaq tahay wanaagsan tahay ayaa duruufta jirta iyo dhibaatada dhulka jirta ayaa waxay nagu adag tahay inaanu u qaadano sidii ay ahayd marka maxaa tala naga siinaysaa inaanu ku toosno diinta Allah ugu horeyn naftayda iyo tiinaba waxaan kula dardaarmaya inaynu ilaahay ka baqano subxaana wa tacaala mar kasta oo laba shay ay iskhilaafaan insaanku ka u qiimaha weyn loo horeysiiya mar kasta oo laba shay aada noqoto inaad kala doorato insaanku waxaa caadiya inuu horeysiiyo ka u qiimaha weyn leh waxaan naftayda iyo tiinaba kula dardaarmaya inaynu xaqa ku mintidno oo ku dhegsanaano nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo saxaabadiisu la fadhida ayuu wuxuu yidhi aakhiru zamaanka muslimiin waktiga dambe rag baa iman doona buu nebigu yidhi midkood ajarkiisu uu la mid yahay 50 minkum buu yidhi 50 idinka mida uu la ajariyey saxaabada way yaabeen waxay dhaheen yaa rasuulallahi 50 minna wa minhum ma 50 anaga naga mid ah mise 50 iyaga ka mid uu la mid yahay may wuxuu yidhi 50 idinka mid buu la ajariyey wuxuu nebigu ku sifeeyey waa dad nool wakti diintu ay tahay dhimbiil daba oo hadduu qofku hayana uu guban doono hadduu sii daayana dee uu diin la-aan u bixi doono waxay tilmaamaysaa inagu weli waktiga inaynan joogin baan u malaynaya laakiin inay rag wakti gaari doonaan diintu inay dhimbiilba ku noqon doonto imaa inuu diin la-aan u baxo iyo dhimbiil inaad haysaa dee wax fudud maaha haddii xabadda xulun lagu yidhaha sacabkaa ku haysaad yeeli haddaad tuurtana dee daran oo wixii lagu yidhi ilaali lume haddaad haysana waa inaad gubataa macnaheedu wuxuu tilmaamayaa nebigu gubasho inay ka door bideen inay diin la-aan u baxaan waxaan tilmaamayaa markaasi diin la-aan wax ka liitaa ma jira qofka muslimkii diintiisa inuu ku yato oo xejisto hadi waaxida ka labaad aan dhallinyarada u tilmaamaya waxay tahay wadanadan dadkii joogay inay diin bartaan way adkaatay halka sababe koowaad aan isle way u adkaatayna waxa weeyaan luqadii carbeed baa ku adkaatay laakiin waxaan arkay luqada carbeed inay fududahay qofkii aqbala inuu barto haddaad aqbasho hal course oo 6 bilood ama 9 bilood inaad Masar ama Suuriya ama Suudaan ama wadanada carbeed mid kamid ah tagto
course ligayri naatiqiina biha baad soo qaadan kartaa oo 6 bilooda ama 9 bilooda waxaan soo noqon kartaa adigoo si fiican diintaadii u baran kara oo u akhriyi kara waxaan aada ugu talinayaa ragga waaweyn iyo kuwa yaryar cid walba iyo dumar iyo ragba in la soo qaato course-kaasi ligayri naatiqiina bihaya halkan ba hadda tarantriga waa 3 bilood waa wadaa soo maaha solo university baa loo tagaa in kuush lagu shaqo tago oo tarantriya laga soo baxo af norwejiga lagu barto ama Rusenhof in la barto ama in imtixaankii Bergen testka la galo ama TOEFL test inaad gasho waxaan oo dhan waa hunguri uun dee war aakhirana inaad hal imtixaan u gasho miyay ku culustay TOEFL kii aakhira inaad gasho TOEFL aad kutubtaada ku barato waa 6 shuhuur ogolow 6 bilood 9 bilood inaad reerka ka tagto yararka kaxaysido soo bartid cid kale soo bartid course baad soo qaadanaysaa 6 bilood ama 9 bilood wuxuu qofku soo noqonaya isagoo luqadii carabeed si fiican u fahmay taasi waxay fudaydinaysaa kullama luqada carabeed aynu fahmno asalkii diinta Salman muxuu ku yiri qoladii kiniisadda joogtay war diintan asalkeeda ay sheegay buu yiri dabeetana wuxuu doonay inaan niman beershiyaan diinta kristanka u dhigdhigin meeshii ay ka soo baxday iyo xaggii ay ka tibi inuu tago ka soo barto wax waliba waxay ku fiican yihiin asalkeeda inaad ka barato tarjama af Soomaaliya tarjamada Ingiriisiga iyo kutub Norweji lagu akhriyaan akhrinaya waxaas diin badan laga baran maayo diintu asal bay leedahay waxaan idin kula talinayaa asalka barta dabeetana ku dhaga wallahu a'lam جزاك الله خيرا شيخ مصطفى سؤاشا عوام waxaa looga dhigay talo iyo duco waxaan cunaaqaadka dhib badan ayuu igu hayaa naftayda reerkayga iyo caruurtaydaba waxaan in badan go'aansaday inaan joojiyo mase dhicin waxaan ka codsanayaa culimada iyo dadweynaha in layga duceeyo mar labaadka waxaan codsanayaa in aad talo iga siiso sidii aan qaadka ku joojin lahaa aafaadka ugu waaweyn ee ummadda Soomaaliyeed haysta waxa ka mid ah daragaasi qaadka la yiraahdo waxa laga yaabaa in rag badan ku qosleen ninka kan laakiin anigu waxaan isleeyahay waa qof ka warramay xaqiiqada dhabtay jirta wadanka Soomaaliya aafada qabiilka waxa ka weyn taala waa aafada qaadka oo aan oran karo waa balaayooyinka ugu waaweyn ee mujtamaca haystay baabiye dagaalo badan iyo rabshado badan iyo dhib badan oo dhacdana ay keenay وانا مفتاح فساد كوردن الخبائث عندنا قاد بكاء qaadna waxa loo cunaan u maleynaya waagi hore garasho la'aan iyo geed fiican oo la moodayay laakiin maanta waxa macruuf inuu daraga kamidayay daraga kamid oo caadi ah mukhadar caadi ah waa mas'ala cilmiyan aan maanta u baahnayn dood badan waanan jeclahay qaadkaasi saynu umadeena uga badbaadin lahayn muddan hadda ka fakarayay wadankeennii inaan ka dhisno urur aan shaqo kala qaban inuu qaad sharxa mooyaane waayo aqoon daraaba badatay oo wuxuu xuyay baa dadkii garan waayey aad baan u rajaynayaa in la sameeyo aan dan kala lahayn sharxa uun bahalka iyo aafada mujtamaca ku hayo qaadku waa aafo aada u weyn waxdayntuna koow waxay ku xidhan tahay marka koowaad niyo saadiqa iimaan dhabo qofka gala iimaaniyaadkiisa iyo caqiidadiisa uu kor u qaado alle ku xidhnaantiisa uu badiyo laba waxay ku xidhan tahay asxaabta oo uu bedelo يعني انت لا sheekaysan jirtay ama sheeka taqaaneen ama wada qayli jirteen inta aad ku xirantahay way adagtay inaad qaad iska deyso waayo markaad maanta diiday bari diido saa dambe midba sidun ba ku imanayo ku oranaya nooci dhaadheerayo fiicnaa baan maanta sidaa kan maanta isku day markaas aad maalintaana diidi doontaa maalin dambe mid ku imanaya war hadiyad baa la soo diray kartoon yaro booliskana soo dhaafo iska dhan waan maanta ciidina la wadaagin
maanta uun kaga qaad marka kaa tegi maayo waayo waana saaxiibka waana wixii aa wada isticmaali jirteen markaad adigu shilinkaaga ka haysatee waxaa ka haysatee kan ka haysato miduun la ordayaa kuu soo gelaya walidaalika waxaan leeyahay haddaad rabto inaad qaad dayso ama sigaar dayso ama waxaa dayso dadkiisa daa haddaad rabto inaad khamro dayso dadkeeda daa waa maxay waa mujtamac aan ahayn raac jamaacadan islaamiga tabliiqa la yidhaahdo oo dhalinyaradu qaarkood in badan xasaasiyad ka qabaan xasanaadkeeda waxaa ka mid ah dadkan ay saartay ee kaxayso waxa ay faa'iidaan ugu weyni waxa weeyaan bii'adii qofkani uu ku xidhnaabaa laga saaraayo bii'o kale la geeya dad kaluu bartaa jamaac kaluu raacaa si kaluu u fakaraa wixii uu ka sheekayn jiray waxaan ahayn buu ka sheekeeyaa time tablekiisii baa la bedela qofku inuu time tablekiisi iyo nidaamkiisi oo dhan bedela wax fudud maaha markay qofkan kaxeeyaan waxay bedelaan nidaamkiisii oo dhan time tablekiisii iyo si uu fakarayay waqtigu toosiyay waqtigu wax cunayay cidduu la sheekaysanayay cidduu wixiiba 40 kan casho cid kalaad caalam kalaad gashay oo ka gedisan caalamkii adiga iyo asxaabtaa ku noolaydeen waxaan leeyahay bii'ada inaad bedeshaa aad bay muhiim u tahay Greenland ka kaalay baan leeyahay maalin daba koob shahra ka cabi ha marin inga raba oo sala jooga ee raba inuu qaadka iska daayo anu Greenland waxaan u malaynayaa imka 5-6 sanadood ma arag bidhaanteeda dareenna ila ma marin basneeda mana imanin haddaad Greenland iska dayso waanad sooba ag marin waxaan isleeyahay waad ka badbaadaysaa oo ah inaad masaajida shaqadaada markaad ka timaado masaajida tag markaad ka tagto gurigaagii qabo iyo xaafadaadii meeshaas lagu iibiyey asxaabtaa joogta iyo inta joogtaba iska daa waa midda labaad ee ilaahay dartiisa ka daa waxaad ogaatay inuu macsi yahay waa macsi waxaad ogaatay inuu macsi yahay ilaahay dartiisa ka daa ilaahay baa wax ka khayr badan kuugu bedelaya ilaahayna waxaan ka baryaa adiga iyo inta kale saadiqiinta rabta inay iska daysaba in ilaahay subxaana wa tacaala ugu gargaaro waa iska daysaan waa dhibta in ilaahay bulshada ka fujiyo adiga iyo inta kaleba in alla subxaana wa tacaala idinka badbaadiyo wallahu aclam jazaak allahu khayran muxaadaradii iyo su-aalihii ka dambeeyey saddexda inta ayaan kusoo gabagabeynay